الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى وفرصدان أن رمضان كل ما يسني كعبادة يسني صلاة بدن أن دكني أن صوني صدقة بدن أن بحسني fursadaas ilaahayna si ayaa mahad iska leh run ahaantii waxa kaliya oo maanta codsan karna waxa waaye habeenihii badnaa oon taagneen oon ducooysanayne oo ilaahay baryayne ducooyinkaas inuu ilaahay noo aqbalo ducooyinkaas Allah noo aqbalo mid kale shacabka reer Mandera bulshada reer Mandera munaasabadan Ciidul Fitri maanta waxaan idin soo gudoominayaa salaan ka socoto madaxweynaha countiga ama sida loo yaqaanaba governorga His Excellency Mohammed Aadan Khaliif salaantaas ayaan idin soo gudbinayaa waxaa kaloon idin gudbinayaa salaan aniga naftayda ka socoto iyo mid dawladiinan hoos ee Mandera dhamaan ka socoto salaantaas oo ah assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh iyo ciid mubaarak calayna wa calaykum taqabbal Allahu minna wa minkum salihal a'maal taas kadib waxaan mar walba xusid mudan ama xasuus mudan inkastoo bil barakaysan aan soo soonnay bilooyinka ka horeey iyo bisha Ramadaan dhexdeedaba waxaan la kulannay culays aad iyo aad u ballaaran oo ay keentay roob la'aan abaar iyo koronto la'aan khaasatan magaaladan reer Mandera alxamdulillah madaxweynaha ama governorga ayaa booqasho ku tagay muddo gaaraysa 2 usbuuci bar asagoo xoog ogaal inuu noqdo raba dhibaatooyinka reer Mandera ka soo gaaray abaartaas iyo roob la'aantaas run ahaantii xog badan ayuu soo aruuri xogtaasna waxay keentay dilaabooyin fara badan oo looga hartaga dhibaatooyinkaas in aan qaadno oo ay ka mid tahay in wararkii dib u habeyn loo sameeyo in ceelal fara badan oo boreholes la qodo in biidhaamin ballaaran ilaa 300 oo meelood bii loo dhaamiyo ama goobood alxamdulillah isla markiiba ramadaanka dabayaaqadiisa waa la socotaan ilaahay roob buu na siiyey waxaa dhacday wararkii inay buuxsameen inta badan culayskani naga yaraaday ceelasha la qodina qaar inta u badan biyo laga helay biyihii la dhaamanayo ilaa 300 maanta waxay ku soo gaabsadeen 100 meelood keli taasna ilaahayna alxamdulillah leenahay culummada iyo odayaalkan waxaan leenahay ducada roobka aad iyo aad ha loo sii wada waxaa kale oo muhiim ah mar walba inaan xasuusana arrimaha ku saabsan caafimaadka marka culayskaas amal imaada caafimaad darro iyo cudur badan ayaa dadka la soo dirsa dawladana si mataqaanaa dadaal badan oo daryeel leh ayaan waxaan tilaabooyin ku qaadnay in isbitaal kasta iyo health center kasta aalaadka isbitaalka iyo daawooyin fara badan la geeya midda saddexaad waxaan u malaynayaa arrimo cajiib ah ayaa nala soo kordhi waayahan magaaladan Mandera inta badan waxaad aragteen wadooyinka inay mugdi yihiin wadooyinkaas mugdiga ma keenin in ay dawladda ay shaqo ka qaban wayse balse waxaa keenay tuuganimo iyo burbur ay keeneen dad weerar ku wada inay xadaan solar panelski iyo birihii solarka inay xadaan dadka ayaga qaarna waa reer Mandera qaarna meel kale ay nooga imaadeen haddana aan la hadlayna in badan ayaa ku xareysan jeelaha laakiin arintaas waxa weeyaan nalalkaas waa hantida dadweynaha dawladda iska malaha dadweynahana waxa laga rabaa maadaama ay dawladda arrimahaas idin sameeyso oo idin dhistay dadka ilaalin lahaay
way istaagi lahay tuugadaas fiijin lahay dadweynaha waay ilaan dawladda meel walba ma joogto marka arrintaas ha la ogaada haana lagu dadaala midda afaraad arrinta ammaanka waxaan u malaynayaa muddo aan aad u dheereen reer Mandheera waa la socotiin dhacdada ka dhacday meeshan xuduudka borderka ood ogtihiin nin askari ah in lagu dilay meesha qaarna lagu dhaawacay waxaan u dirayaa tacsiye reerkii uu ka yimaaday ninkaas askariga kuwa xanuunsanna in uu ilaahay caafimaad degdeg siiyo laakiin waxaan doonayaa fariin ballaaran inaan u diro walaalaheen jiiraankeenna ee Soomaaliya maamulka Soomaali jooga dad walaalo ayaa nahay dad jiiraan oo deris ayaa nahay waxaan u sheegaynaa in ay isxakameeyaan oo weerar iyo gacan qaad waxyaabahaas camal aad iyo aad iskaga xakameeyaan aadan ugu codsanaynaa sida oo kale fariin waxaan u diraynaa reer Mandheera maamulka Mandheera oo anigaba kamid ahay iyo dadka ammaanka wixil saaran ayagana sida oo kale inay dadaal sameeyaan samarna sameeyaan marka wax lagu keeni waay wada hadalna laguma keeni karo weerar iyo dagaal marka labada dawladoodba waa isu baahan yihiin inaan wada hadalno oo si aan markaan dhibaato aan ku jirin ay bulshada looga adeegi karo intaba inaan sameeyno aad bay muhiim u tahay ugu dambeyntii arrinta korontada waxaan u malaynayaa labadan habeen xoogoo isbedel in la arkay laakiin waxaan idin xaqiijinaynaa dhibaatadii korontada ka imaaday oo cabasho badan dhinaca ramadaanka ay ka imaatay run ahaantii arrin dawladda dadaal darro xaggeed ka imaaday ma ahayn waxay ahayd arrimo ku saabsan national government iyo qalab la waayay oo looga talagalay in ay mashiimaha ku socdaan haddana waxaan idin xaqiijinaynaa mar dhow oo usbuucyo ka yar in ay korontadii sidii hore iyo si ka wanaagsan ay ku soo noqon doonto ugu dambeyntii waxaan u malaynayaa masaajid kasta county Mandheera ku yeela maamul ayaa ka jiray culummo ayaana hor socotay waxaan rabaa culummada inaan mahad ballaaran u celiya aanu u ducooyna dadaalkii iyo maamulka wanaagsanaay ay noo sameeyeen oo salaadii iyo soonkii iyo wacdigii iyo quraan akhriskii ay reer Mandheera ku hageen aad iyo aad ay u mahadsan yihiin haddana u jeednaa maamulka ay noo wadaan boqolkiiba boqol waa ku mahadsan yihiin reer Mandheerana khaas ahaan waxaan idin celinayaa mahad ballaaran waana idin hambalyaynayaa ayadoo culayskaas dhammaalaas jara ayaa haddana dulqaad aad u fara badan iyo sabar iyo midnimo ayaad muujiseen waxaan idin xaqiijinayaa dawladdiina danahiina iyo maamulkiina iyo wixii reer Mandheera u baahan yihiin ay ka shaqaynaysaa mar walbana qayb kasta oo ay noqoto waa idin garab taaganahay gaafanaga iyo anigoo dibitigiinaba insha Allah waxaan idin leeyahay ciid mubaarak تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته